imanayso shirkaana waxaad ogaataa waxa ka soo bixi doona inay tahay gobol Soomaaliyeed ay ku tashanayso haddii madaxweynuhu uu si aad u fakarayo uu iman lahaa intuu yimaado oo dhan wadooyin meesha taladii waan dhigay xageen talada haddaan idin la bilaabaya laakiin hadday noqon weyday timeka u dhiman inuu yaqaano waana la garan karaa maanta waqtiga dhiman Jubbaland xildhibaanaha ka soo baxaya senataro Puntland bay ka soo baxaan Hirshabeelle Galmudug intaba koonfur galbeed xildhibaanadaasi haddii waji lagu heshiiyey la waayo oo dowladnimadu ay qaab yeelan weydo wax diidaya ma jiro bari inaan shalayba waxaan u malaynayaa doorashada hadda ugu dambeysay sanadka wuxuu ka bilowday kursiga ugu horeeyay waxaa laga doortay Jubbaland baa soo maahay inaan bilowno maxaa diidaya konton iyo kowdii sanadkii kuwii kale baan bilowno guddiyadii la sameeyay sababtoo guri mugdi madow ma sii geli karo sharci wadan kuma sii tuban karo xaaladda wadankuna sidii ku jirta kuma jiri karayso in la iska joogo iyo in sidaa la yeelana Soomaaliya meeshay gaadhsay baan garanayna marka waxaan rajaynayaa kolley maanta ra'yi badan baa soo jeedin doonaa madaxduna way urursan doontaa dhammaan dadka Soomaaliyeedna waan ugu baaqaynaa barnaamijka aan ka shaqaynaynay Soomaali inaan dumino ma inaan Soomaali dhisno haddii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن صاحبة الصوماليين ملك سؤال جوكتان يسكر سؤال دون تاوريسان جمعة المبارك حوالك صرعة وحوها خطبة دي شلي مدحوينها جبلان أحمد محمد إسلام حمدوه وكفري كولانكا مقالة كسمايو مالنتي اللباد مقالة كسمايو وحاكا صعدة شروينة ودحاية قودهان أمد الصوماليات كاس اللوغة تشليو مسيرك أمد الصوماليات إيوه halka looga guurayo maanta meesha lagu sugayo sidoo kale dadka kulankaasi ka hadlay waxa kamid ahaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ee balisagala taawada hadii la isbaqli waayo oo la ixtiraami waayo oo la wada noolaan waayo hore u soo dhacdo wixii ka dhashay inuu garanayna waa la kala irdhoobaya Soomaali waxaan u baahannahay ilaahay baa meel nagu wada abuuray inaan wada noolaano sidoo madaxa wada noolyihiin deriskeena la noolaano caalamka la noolaano ubadkeena iyo mustaqbalkeena nolol fiican ku noolaano waxa noo dhaxeeya ma aha waxaynu xallin karin baaqay ugu muhiimsan waxaan u dirayaa madaxweyne Xasan Sheekh inuu tala ogolaado la wada leeyahay oo miiska wada hadallada dib la isku soo noqdo oo laga taliyo sidii dalkan doorasho heshiis loogu yahay waayahay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani dad badan ayaa goobta ka hadlay dabcan idin lamana wada wadaagi karno guud ahaan ummaddu meeshaas wixii ay ka dhaheen hase yeeshee ujeedadu waxa weeye iyo meesha loo wada socdo in Soomaaliya laga badbaadiyo xaaladda kala guurka ay ku sugan tahay iyo odaygaas Xasan Sheekh Maxamuud ee dalka la ambaday ereyada ugu macquulsan waxa weeye madaxweyne Axmed Maxamed Islaam wuxuu sheegay hadii la gaaro muxuu ahaa 15 May in markaasi ay tahay in la soo xulo xildhibaanadii golaha aqalka sare iyo muxuu ahaayay golaha shacabka oo markaasi wax hor istaagay aysan jirin in xildhibaanada hadda jooga ee mandate-koodu dhacay ku bedel lahaa maamul goboleedyadu ay soo saaraan dabcan sidaas waynu rijeynayna sidoo kale waad aragtaan muxuu ahaayay madaxweyne Dani isaguna wuxuu sheegay wax kale in isla meeshan oolin xasan waqtigiisa dhamaaday wax kale hadda aan maartay laga wada hadlaana aysan jirin laakiin kaliya ay tahay dalkan sidoo doorasho looga qaban lahaa una mudan yahay inuu yimaado magaalada Kismaayo horta xasan aqli haduu leeyahay oo wax macnaa ay ku jiraan Kismaayo wuu tagi lahaa sababtoo ah maanta xaaladda Xasan Sheekh Maxamuud ku sugan yahay madaxweyne ku soo sugnaaday ma jiro Xasan Sheekh Maxamuud oo ay u dhimantay 4 bilood iyo dhowr maalmood ayaan weli waxa weeye doorashadii isaga muxuu ahaayay lagu bedeli lahaa ama isagu uu dib ugu soo noqon lahaa laga heshiin weli may dhicin madaxweynihii ugu dhawaa xilligaas ugu akhrabsana waxa weeye 6 bilood baa u harsanay markii heshiis siyaasadeedka la galay waxa weeye marka Xasan horta dalka riski weyn buu geliyay oo wax aan horay muxuu ahaa madax kale ugu dhaqmin
ayuu ku dhaqmay oo dalkiioo 4 bilood iyo dhowr iyo 20 biri ay mandatekiisii ka harsan tahay ayaan weli doorashadii heshiis lagu ahayn halkii ay ummadda Soomaaliyeed marka nimankan muxuu ahaatay damujadiid JSB ama UBD waxa doonta dhaho halkii ay arrimahaas xooga saari lahaayeen hadda qabyaalad ay horinayaan inay baraha bulshada odayaal waayeelaha soo geliyaan oo dadka reer Muqdisho lagu beer la xawsado daarad baa dibinaya daarad baa soo socda muxuu ahaatay bal mid kamid ah ila daawada حاد كسماي كجري كسماي عاد كجرو مدد كاغي وحواي باب اولد وادي ماشي انا عقلي لهين ايغا كوما ربان waa ku diideen deni iyo axmed madoob inta waa diideen xaadi ugu niikee wad uga dabaroori ana dabaalnimo badan heed shacadaada ka baxooli ilaahay yaatiini goorma aqli hawiyahan hawiye kale ma lagu jabinaa maalin kasta ma aqliyeysta asugu warshale ciidid iyo cali mahdiya la isku jabshay say arkay isugu baabeen 4 bilood haddana mashariifa hadala waxa xasan sheekh lagu jabiha haasa hadala hawiyihi lagu baabi'aha war aqliga ma shaqeeya miya hawiyo dabaalamaati war daaradku waxa ku arka waa dabaalnimada xaad kismaay ka jire iyagaba kuma raban waa ku diideen waxay la tahay inaad daawatay ninkaasi waxa weeye wajifada xasan sheekh dad buu xiga waxa weeye marka dadkii wax magaratada ahaa ee doqonta ahaa ayaa baraha bulshada la soo gelinaya heblaay baarqabo iyadoo qaylinaysa arkaynay waxa weeye wasiiradii iyo kuwii aan aqliga u saaxiibkayna shala hadlayay maanta waxa la buunbuuninayaa oo la cuskanaya qabyaaladii oo waxa la leeyahay daarooda dalka burburinaya liman hawiyaha ahmaqaya ayuu adeegsanaya narrative-kaasu xasan abuuray meeshii la rabay inuu yiraa warnimayahow wadaniya waaxid yaa waalan baa la yiri waxa la yiri waxa waalan waaxid kaligay baa khaldan ee diyaaraddu qaato uu tigala Kismaayo dhinacayahow hadda in heshiino waxa weeye qabyaaladu naftada waxaan leeyahay waaleeyow daaroodkan aad buunbuurinaysaa oo leedihiin dalku burburinayo daaradku waa Soomaali ee ma ahan cirfiid balaayo annaga hanooga dhigana cirfiid ma aha waa dad Soomaaliyeed waxbay nala leeyihiin shalayaa saan la yeelay shalayaa inta la isku dilay shalayaa la isku keenay dir horta waa la isku keenay dir kelmadda cid kasta oo adeegsata waa cid ku dhawaaqday inay dadka ka aqli yar tahay waxa weeye xoolaha la isku dira awrta iyo dibida iyo waa la isku diraayo inta la isku shaqeeyo isku boodaan laakiin dadka bini'aadamka wuxuu leeyahay maskax ilaahay siiyay oo ilaahay deewa ka yiri walaqad karramna bani aadama maskaxdaadu inay kugu filaataan loo baahan yahay laakiin sababta dagaalku u dhacayo sababta la isu dilayo iyadoo aad adigu sababteeda leedahay oo adigu aad koos gareynaysid inaad cid kale muxuu ahaaytay xagato waa laga fiican yahay xasanow waxa weeye waxaad aad u burmud gareynaysaa xamar la doonaya in la dumiyo shariifa la soo adeegsanaya xasan qayra la soo adeegsanaya cadana la soo adeegsanaya niman hawiyaan aqli hal ahaatay inta la soo adeegsaday halka raba inay burburiyaan nimankaas ma doonayaan xamar inay burburiyaan waxay doonayaan dalka adiga inay ka qabtaan ma rabtaa xamar inuu nabad galo ma rabtaa inaan nabad ku wada noolaano xasano waxaan leeyahay bahasha dhulka dhig waxa weeye waqtigaagu u dhamaaday dhexda soo dhig waad xallin weysay xilli waxaa jirtay aad adigu fursad u haysatay in aad doorashada waxa weeye adigu jaangoyso laakiin maanta fursadaas way dhamaatay dhulka soo dhig waa diiday Soomaha xamara burburaya waxba nagu beer la xasan cid allaalay cidi waxna tarays oo adigaas nooga ka macaynaysa ama daarad ha ahaato ama jin ha noqoto ama jareer ha noqoto jareertan la yiraahdo ishaga Afrikaanka loo jeeda ee degan maxay tahay Soomaali Bantuga baa Afrikaan Bantuga jareertan waxa weeye waxay u kala baxaan dadka Afrika dadka madow waxay u kala baxaan Bantu iyo maxay tahay Kushitik marka annaga maahe Bantuga ilaa koonfur Afrika degan xataa hadday tahay way garab la siiyaan baynu garabsanaynaa Soomaali baynu garabsanaynaa yuhuud baynu garabsanaynaa cid allaalay cid saaka muxuu ahaa xasan maxamed cali suug wax aan isaga tuurana siinay soo dhawaabana sababtu maxay tahay wuxuu rabaa xasan inuu hawiyenimo uga xogo oo ugu beer la xawsado waxaana ka hortaaganahay xaaskii hooyaday aabahay caruurtaydii ayeeyaashay guryahay deganaayeen buu doonayaa inuu habeen madow dumiyo katarabiil baa hortaagan markaasuu leeyahay yaa baad isi minay kale ma waa dumiha ka dumihaaya minay kale baad isi toman ku soo baxay toman ku halaysi war lacag iguma lih waa gooftayda dhulka 1000 sano kala dhaxlay war walaalo ida maya waa laga dumihaaya dawladda tahay shaatigii dawladda xiran tahay
rasaastii iyo hubkii iyo logistikadii naga dhexaysaad iyo adeegsanaysaa marka wayga xoog badan tahay sow maaha haa ciddii anigana intaasoo kale isiinaysa ayaan saakay maciin badaya sababtoo adigaa ii diray adigaa daaroodka ii diraya adigaa afrika ii diraya adigaa yuhuud ii diraya adigaa cid allaalaya ciddii aan kaashan karo inaan maanta maciin bado adigaa ii diraya sababtoo duulaan baad igu tahay waxaad adeegsanaysaa waa wixii aniga iyo adiga naga dhexeeyey guryahaygii baaba kaa celi la'ahayba maxaan isu laha hawiyanimomaad ugu beer la xusan kartaa masana baan xusaa war annagu ma ogin hawiyaha la sheega xataa inuu jiro wallaahi baanaan ogeyn oo adiga daawanay aadan ogeyn oo daarad inuu jiro aadan ogeyn oo dir inuu jiro aadan ogeyn waxaasi wax taariikha hore ah wey taariikha hore dad noolaa laga yaabay inayna dhaleen laga yaabay inaysan na dhalin oo xataa yacni maadaama wax badan noo qorayn oo hadda wax 100 sano ka badan Soomaali qoraalkeeda 100 maxay taab wada hadda shalaaba la qorba dhawaato kii la qorayba waska 60 sano iyo xooga dhowr 60 sano baad noo qorayn wax hore noo qoraa jirin xataa ma hubno dadka maanta la rabo in dadka inta lagu beer la xasuuliyo dadku reer hebel ku soo dulay xataa wallahi inay jiraan inaan ogeyn waxa weeye marka annagu waxaan nan garan oo aanan maxay tahay arag oo aanan soo gaarin waxa weeye nala kuwa beer la xasuusan karo hawiya lagu soo duulaya daarad baa ku soo duulaya kuwa doqomaha hawiyaha la adeegsanaya taas xasanow nala kuwa beer la xasuusan karo waxa dadku ay u jeedaan xamar jooga ee cad ee la taaban kara factiska waxa weeye inaad tugta oo dadkii barakicilaysid oo masaakiinta xoolaheedii boobtay baa loogi kuwa maxuu ahaytay aad dhibkaas u geysataana lagaaga maciinaya ma rabtid Soomaa in xabad u dhacdo ma rabtid Soomaa in xamar dinto ma rabtid Soomaa in daarud yimaado hubaysan ama hubna soo siiyo saaka baasha u kadhig ha warku waa dhamaad dhulka iska dhig waxaad tiraahdaa biswaay waqtigeygu u dhamaaday waana ku fashilmay dalka inaan maxuu ahaytay siyaasadiisa jaheeyo saas ila tiraahdo shalay dadkii meesha ka qodbeenay senator Cabdiraxmaan Faroole oo kamid ahaa kelmad cajiib wuxuu yiri haddii shalay Hargeysa goosatay oo Soomaaliya ka go'day maantana Muqdisho Soomaaliya ka go'day buur war weyn waa Muqdisho go'day yaa la go'ay Xasan Maxamed Cali Sow awal maxaa la dhihi jiray hawiyaha haddaynu nahay maxaynu ku xantami jirnay ma jeerteenku kama sokeeyo isaaq Puntland waa tuugo ahey kayga kulalihi kaaga kulalihi kaygana aan iskale waxa waaye maalin inay goostaan ay rabaan hawiyaha dana asaas soo shaqeynaa soo ha maanta Saciid Cabdullaahi Dani oo ay u dhiban tahay 3 sano iyo wax la jira baa wuxuu joogaa Kismaayo wafti kaxeeyay diyaarada ka haystay lacagta meesha lagu cunayo qaybtiisa ka bixiyay maxaa waalaya muxuu rabaa waqti buu haystaa ma iska fariisto adeegii waqtigu ka dhamaanaya Xasan Maxamed Cali Sow 4 bilood ku hartay baa diidan Soomaali inay wada hadasho Puntland madaxweynaheedii waa ninka intaasoo milyan oo kharash u galay Soomaali inay isu timaado oo waxa weeye danaheeda ay ka tashato isagoo mandate adiguna caasimadii aad la go'day markaas odayaal waayeela inta soo gelisay habar xino xusul barro jawaar baa qabli ilaa daaro laga jira kisaayaha laga jira ya xamar Soomaali ka go'ay karta waxa weeye waxaad ka shaqeynaysaa waa in xamar ka go'aysan Soomaali laakiin waxaan leenahay hey haataya dhicbayso ma go'in kartaan insha Allah ta'ala hadaan dhulka dhigina gudaha lagu soo galayaa jilbahana dhulka lagu furaya xasan insha Allah ta'ala umada Soomaaliyeed waan salaamaya waxaan leeyahay qabiil yaana la ku beer la xasuusan qabiilku hadduu wax tarayo warshadan xasan soo doorno farmaajo ka hornimo oo dhir farmaajo bax daarad baatay xasan oo kaalay ka tarbiilan ka dhaxal ma baba sheegayna reer qudusbeen maqli ma ka tarbiilan idinku qaadi jir waxaasan ka dhaxalay markaasuu kiisidaas loo galay ee warankiisa dhiigeenu ka qoynaa wuxuu rabaa maanta inuu mar kale haddana nagu beer la xasuusto daarooda la aaday nimanta qomaha la soo adeegsanaa hawiyo kaca ma kacayna maahe Kismaayo waxa ka soo baxan ku baraysan lahay hadday nala gasho la yiraahdo ninkaasi warku tagi maaye maxaa tahay xabad la dhacan safka galina insha Allah ta'ala sidoo kale laga xoreeyo hada billahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh